wanaagsan dadka na daawanayo meel kasta oo aad joogtaan barnaamijkeenan maanta waxaa marti noogu ah wasiirka gaashaandhigga ee dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Xuseen Carab Ciise oo isagoo haatan ku sugan amaba markii aan wareysigan ka qaadiyay ku sugnaa dalka Mareykanka gobolka Minnesota magaalada Minneapolis markii ugu horeysa saacad wasiir ku soo dhawow wareysigan oo aynu ka hadli doono inta badan arrimaha ka jira waddanka Soomaaliya أنا هذا مركب ورئيسه وحن سجارة كعادة عصرية جردي نحن ترى هذه الدوام كنت ميت عرب عيسى وأباها وكل شيء وضع كان مريكان إلى هاي سجن حريص الناسيو آمين هذا كان السمري يعني الله كاسيه هدي أنا نقول لك الله سؤالين سيدا ما صعدنا مع المهن قدام بيه عندما الدولة تكمل الجار كاي الصومالي وحكم مغذي هرمر دجانا عصب أو أي جعنته كل دجان كوحة الشباب أو أي ريحين أو عبيان ما حد أوران كرتا كوزير هان مركزي استراتيجية دي تاعت كذا عصب عادي من كلا صوب بعدين أو يدكو صبيري وما حي مسمى شيء كارنتي وحكى بعدين كوحدي إن عبيسي الشباب. السلام عليكم والله سنتي رنتي فرصة وناس الإنسان أو شعب الصومالي كل هذا الله يرهب من صوتهم مركورة وحربيان ما حد عليه Soomaaliya reer Minnesota iyo gobolada kale Mareykanka sida wanaagsan waraartina madal leh ay halkan lagu caawiyeen abay maartay geeriyada tacsida nagu soo direen waxna la qabteen runtii waxay na tuseen Soomaalida dad walaalo ay yihiin oo marka maartay qof kale mushkil qabsato nig la isgarab istaagay marka runtii reer Minnesota waxaan doonayaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo taas waa mid talabaad waxaan doonayaa inaan tacsiyeeyo runtii كي سوماليدا ما أنت دويد القرح لوسنا مقدشو أنتي سيدا الحمد لله الله كل نتي حدنا إن الله نحرسته أنتي كل دعوة عنتنا إلى حي سبنا ما تعرف ما تقدر سؤال اليوم سؤال هذا دون سؤال نقطة دغدغاء دويد الميلتري وقاعد وحي حيد مد استراتيجية دير وكسر بلا أنتي مرجي أشرب يكبح ده مقدشو أغسطس 2011 taasoo ku dhisnayd inagoon dhageysan cidna inta badan waqti waxaan la oran jiray maxaa sugaysan maxaa dhaqaaqi weydeen laakiin inta waxa laga shaqeynayay runtii tan maanta socota oo ah marka hore ammaanka Muqdisho la sugo iyadoo intaan laga hore looga bixin system lagu og yahay laga baxo iyo tii gobolada oo furantay sadogtayba ama xagga Jubbooyinka ha noqoto ama dhinaca labada Ethiopia Kenya dhinacyada laga soo galayay marka strategy long term ah bay ahayd oo la rabay in maaragtay pressure dhexda la soo galay nimankan tii maanta markii la gaaray waqtigeedii ayaa hore loo socday oo wadagta dhinaca xagga balcad loo kacay xagga gooyaba marka waa strategy military oo runtii nimankan khibrada ah yaqaana shaqada military ee ka shaqeeyaan waxa maxad kule runtii marka hadda xoog ciidamada qalabka sida especially xoogga dalka Soomaaliyeed oo geesinimo muujiyay runtii saad ogtahay duruufaha aad u adkaystay oo dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray marka runtii iyaga ma hadda leh laakiin waa operation long term oo kuna salaysan in lagu badbaadiyo dadka magaalooyinka degan marka maslada hadii aad Muqdisho kale ka gudubtaan waxaad u sii hinqan kartaan gobolada kale ku dhigto magaalada Muqdisho istaraatijigu waa inta Facebook wuxuu ahaa Muqdisho tuugu waxa marka in laga baxo oo dabad marka gobolada loo sii dhaqo saacad wasiir marka laga hadlayo ciidamada militariga ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya inta badan waxaan ognahay in tababaro aad ku soo qaadataan ama ciidamada ku soo qaataan dalalka jaarka ah Soomaaliya Uganda iyo Kenya ugu horeyso marka laga hadlayo duruufaha nolosha iyo sida ciidamada Soomaaliya u shaqeeyaan xilligan adag ee lagu jiro ma qaataan mushaharooyin joogto ah ma dad mushaharkii dhowrkii bilood mar la siiyaa waa sidee nolosha dhabta ciidamada waa su'aal aad wanaagsan oo waxa jira waxyaabo badan oo dadka runtii shacabka Soomaaliyeed ama dibadda iyo gudaha maaragtay ay maqlaan horta tababarku waa normal bari xataa dawladii hore ee siyaad bar waqtigeedii military dibadda waa loo diri jiray tababarka dhowr dal kala duwan ku soo qaadan jireen marka wax taas wax cusub baa xagga mushaharada way qaataan mushaharadoodii ana maran kiimanayeen kala bilood bay qaateen lacagtoodii marka liya ilaa iyo Augustna lacagtoodii waa u taala waa diyaar marka way jirtay mar xogaadu ka yara daahday oo waxay ahayd adu mid ku yara xiran dalalka bixiya annaga xaggayga ma ahayn oo adu siyaasadii waxa ku xidhnay laakiin way u furantay markiiba oo labadii bilood ka maqnaa mar baa la wada siiyay marka soo baxayay ilaa iyo Augustna waa u taala marka taas mid mushkilada ma waxa dalka gudihiisa ku jira ciidamada Ethiopia oo gobolada qaariminka jooga waxa kale oo jira ciidamada dowladda waddanka Kenya oo iyana meelo badan iminka haatan dhaqdhaqaaq military ka wada ciidamadaasi
ma idinkiina ku yimaadeen mise qaarkood idinlama tashane waxay usoo galeen si toosa iyagoo markaasi la dagaalamaya kooxaha al-shabaab horta muhiimadda ugu weyn waxa weeye regionku maanta inuu garto Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Kenya inay dan u tahay in nimankan la dagaalamo taas waxay keenaysaa marka stability regionka u keenaysaa annagana noo fiican iyo kan noo fiican tana sheegaysa idinkoon ogeyn waxa weeye waa Kenya way taasu oo say ku soo gashaan ognahay laakiin waxay daba socdeen oo isticmaalayeen qaanuun u yaalla regionka oo haddii dalkooda loogu yimaado wax la yeelo wixii dhacay in ay soo dabagali karaan soo erin karaan oo xuduud xidhaa ayna jirin taasuna waa qaanuun inoo yaalla regionkeena oo international isku raacsan yahay oo security council laga pass gareeyay laakiin taas innaka waxay inoo noqotay caawimaad weyn oo nimankii dhibaatada lagu hayay ayaa maanta naga caawiyeen oo wadagta way naga quwad badan yihiin xagga cirka iyo dhulka iyo badaba maanta naga taakulayaan naga caawiyaan taasaa nimanka dhabarjab weyn ku samaysay Ethiopia waxa weeyaan waa dad jaar nimankan waxa weeyaan dan uguma jirto Soomaaliya oo nabadayni ka jirin inay maanta marka aan iskaashano innaka jiraankeenna oo nabad ku wada noolaano innakana waa noo fiican tahay kana waa fiican tahay cadowgana waa innaka kaliya ma aha regionka dhan buu cadow ku yahay wadagta way iscadeeyeen oo waxay yidhahdeen alqaacidaan u nahay taas marka wixii annagu aan sheegin bariyaha ayaa run noqday annagu kaliya ma dunida dhan bay marka tarad ku yihiin dalka Mareykan aan joognay tarad ku yihiin muddo inta laga sii joogi doona marka dalka wasaaradda ciidamada Ethiopia iyo kuwa Kenya communication marka ku noqoto waxa weeyaan marka ay dhamaato sheekadan alqaacida way noqonayaan iyagu laana waxay mas'uuliyaddeena kana saaran tahay in la dhiso maamulo meesha la xoreeyaba haddii aad tihiin mas'uuliyiinta dowladda ku-meelgaarka Soomaaliya sidaad u dareemaysaan ama aad uga damqanaysaan markaasi dhibaatada iyo dhaawaca ay u geysan karaan dadka shacabka inta badan marka target ama loo socdo meel in la garaaco inta badan saameeya dadka shacabka taasoo kale sidaad u dareemaysaan waa su'aal aad wanaagsan runtii laakiin waxaan arkaa dhibaatada taa ka weyn waxa weeyaan al-shabaab dhibaatada ka geysatay kumaan qof bay dileen runtii taa lagama hadlo marka dhaawaca iyo dhimashada ay nimankaas u geysteen dhowrkii sano ugu dambeeyay ayaa wax kasta oo nimanku geystaan ka weyn now taa macnaheedu ma inaan ogolnahay in ay waxyaalaan shicibkeena magaalooyinka ta keentay runtii dib u xoreynta dib u yara dhacdo waa istaraatiijiyadan aan ku leeyahay dadka lagu badbaadinayo oo marka magaalooyinka waaweyn ama Baydhabo ha noqoto ama Beledweyne ha noqoto ama Kismaayo ha noqotaba in aan maaragtay cirka laga rushaynin istaraatiiji wanaagsan lagu galo mistake ku dhacaya marka qaarkood sidii aan horeba uga hadalnay oo maaragtay uga tacsiyeedeen dadka ku dhintay mistake laakiin dawladdu marna ma ogolaan mayso meel shicib degan yahay in maaragtay la bambeeyo waxaan naku dagaalka loo galayaa waa in dadka shicibka la xoreeya marka ugu horeysa marka dadka islayn xoreeya inaan ogolaanin wax la yeelo wax maskaxda gala ma aha laakiin marka qaarkood waa dhaca mistake taasuna inuu shacab maaragtay mistake ku dhinto way jirtaa nimankan aan la dagaalamayna istaraatiijiyadu waxa weeyaan inay ku dhuumaaleystaan meelaha shacabku degan yahay mushkiladda ugu weyn waa taa marka iyaga ayaaba runtii caqabad weyn ku mushkiladna ku ah markaynu usoo noqono sida u shaqeysa dowladda ku-meelgaarka Soomaaliya qaybaha dowladda haddaynu saddex qaybood u kala qaybino madaxweynaha hay-adda baarlamaanka iyo hay-adda garsoorka madaxweynaha waa la maqlaa khilaafyada baarlamaanka ibaad waa la maqlaa hay-adda garsoorku cod ma leh waana tii ugu muhiimsanayd marka la isqabto inta badan kala saari jirtay hay-adda garsoorku xaggiina maxay ka tahay waxa meesha wariid balahan jirtay bay leedahay oo shaqadeedana way wadataa marka wax mushkilada uma arko awoodeeda maxaa laakiin wax moodaa in awoodeeda aad u yar tahay والله ما ولا هذا هو وين مشكلة وين ردك أرك باشرت لكن أنا هاي شغلة كلي مرة دعكله كانوا حق أمن جانا وهاك أن ضد ضمبار ميسن سعادة الوزير أو إلى هذا دولة كملجارك الصومالية وحق عنده وجرتها الدولة كلا أوش شيء يوركله وحق التروين كمرة اللي قاعدين أن هدي تصالح إنه سوق هذا وستينا مهيجة أوكله وإرجع جارك قريبا من الصومالية وقابسنا tallaabo aanu ogeyn dawladda ku-meelgaarka ee Soomaaliya haddii ay tihiin ma qaadi kartaan mise waxa khasaba inaad kala tashataan mar kasta oo ay timaado hawl laga qabanayo dalka Soomaaliya ma yahay dawladda anaka markaan waxayna meelaha tagayna anaka oo madax banaan waxaan ku hadlayno waxaan sameynayno marka runtii maaragtay isagu maaragtay waa ambassador runtii marka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ama anaku iyo maaragtay in anaku aan ka fasax qaadano ma aha waa runtii nin ambassador oo specific role leh marka asaas ma noo macaamilna oo relationship noocaas ma kula wada shaqeyn ma marka idinka wada shaqeyn wanaagsan baan naga dhaxaysa khilaafaadka dawladda baarlamaanka oo kale waxaad moodaa in gudoomiyihii sheekh Sharif Xasan uu ka soo jeestay nin la yiraahdo Nuno oo gudoomiye xubin ahaa isaguna uu sheegtay in markaas loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka inuu yahay laakiin dawladda waxay moodaa in aanay markaas si cad u kala qaban gartaasina aanay si fiican u naqin aad moodaa in xogaa ay ka cagajid ama ka aamusan tahay hawsha aamus baa ku dhameyseen mise labada kooxood oo isla shaqeeyaan ما يعني أنا قلت واحد ويدا صار شيء تبغى branch very very important برلمان
وإذا قوتي سله ورنتي وشرعي بالشرعي اللي قد جيني دلك الوذي مركا إن يجوا تود حليان أيوة تعالى وأنا مسؤولين أو ما أعتبر قد بكسر شري سياسة مركا أيك تعالى إن رنتي أي هشيان ده هو ذكي هشيان دنت دلك سومالدنا كشقيان وأنا قرنا إن تاو بيهين خلنا كم مرة دحقلوا وأنا قسم إنه إن هشيسنا مويانو أمارة كده شقينا وأنا سنرنا مرة بلدنت سومالية تلاقي شقيو موياني وحكي لما شرتو لكن إن هشيان أو أي مرة إن صوص عران واحدة سومالية وأنا أحسن إيه كي تعالى مدحوينها جمهورية الصومال الشيخ الشريف الشيخ أحمد لوان حشاقة إن قدي الله دور دون الصومال قدي داسي أو كسرت دولتكم الجار كالصومالية سواضح هذا إن شركي لو قتم بقاعدة لندن ولو سوق هذا إن صومال أي تاين إيه وضح هذا ما يصير فرصة قدي اسمتها قدي شقين دون تا سوحة هيدا من أفكار وأن ولي يد وحفعل الله horta runtii qodobka ka soo baxay shirkii London oo xaqiiqada kii ugu muhiimsan inuu yahay marka lagu maartay la eego xagga amniga oo la hal caawiyo Soomaaliya inay maartay capacity la dhiso ciidamada qalabka sida iyo maartay force-ka national force-ka tan wada hadalku waa muhiim laana waxa weeye maartay Soomaaliya wixii dhexmaray in laga fariisto oo laga wada hadlo laga wada xaajoodo nabad waxa ka iman karta wanaagum guddiguna waa muhiim marka la wada fariisanayo waa in guddi la saaraa runtii ka shaqeyn kara waxan oo ka shaqeynaya danta shacabka ay represent gareeyaan markaan waxaan arkaa guddiga marka la saaray in xulitaanka ayaa ugu muhiimsanba dadka meesha imanaya iyo ajendaha ay la tagayaan in laga sii hadlo marka waxaan qabayaa haddii la saaro sida saxan looga shaqeeyo faa'iido weyn baa ka iman karta way muuqataa inaad dadka lagu arkaan inaad shabaab caabiseen ama aad meelo badan iyo gobollo badan ka saarteen aanad markaasi nidar ku gasheen inaad dalka ka dhamayn doontaan oo danta dadku ay soo geli doonto dadka shacabka sax maxaad isleedahay horumara oo aad gaadheen iminka intii aad ku jirteen dhaqdhaqaaqan military oo la arki karayo ama dadweynaha shacabka ku dhageysanaya ama ku daawanaya aad u sheegi kartid horta horumarku dee mid la qiyaasi karaa ma oo waxaad ku noqoto markii dowladda gruubkan cusub aan ku nimeen July dhamaadkeedii dhowr kilomitir baa Muqdisho la joogay gobolada mabal maartay waxba kama socon maantana Muqdisho 100% waa xor laakiin wali qarxiyaa jira kii ugu dambeeyay imka dadka ugu tacsiinaysa oo kale waxa moodaa inay soo noqonayaan qarxiyada noocaas oo kale may runtii waxa weeye anagu waxaan ognahay 99% waa la fashiliyaa waan ka shaqeynaa marka mid of course way dhacaysaa inay maartay ay beelaha la soo galaan runtii qof goostan inuu isqarxiyo oo isdilo cid ka hor iman karta dalka maanta aan joognay ka dhacdaa lagama hor iman karo oo nintu iska qaata bistoolad waa dilaya 10 qof 5 qof wayna ka dhacdaa Mareykanka joogno maalin kasta marka waxa weeyaan anagu laakiin waxaan ka shaqeynaa nabadda weyn oo saan ku sheegay projective baa jiray marka la naqweyn oo kala la saaray oo madaxweynuhu hogaaminaya ahayd in militariga iyo poliiska iyo nabad sugidda iyo koox la shaqeynaya gudoomiyaasha degmooyinka aanu dejinay xaafad loo galayay oo la baarayay taasoo ahayd in amniga magaalada lagu sugo aad bayna u shaqeeyay taasu marka waxa weeye qarax marmarka qaarkood u dhacaya laakiin say ahaan jirtay maanta markaad ku eegto soo dhawaa horumarka marka la gaaray marka Muqdisho waa xor gobolada inta badan waa xor oo waana ka tagnay Beledweyne oo tagnay Jubbooyinka waana ka tagnay Baydhabo Garbaharey marka waxaad moodaa goboladii dhawaan inay isku soo xidhnayaan dhawaan Kismaayo baa hadlay waxaan rajaynaynaa dhawaan inay la xoreeyo al-shabaab halka ay dhig waa maxay caqabadaha kale ee idin hortaagan haddii aad dowladda ku meel gaarka Soomaaliya dhinaca dhaqaalaha maxaa kamid ah caqabada ugu weyn runtii waxa weeye horta in laga baxo ku meel gaarnimada leena taas waxay leedahay limitations badan bay ku gelinaysaa oo deemaan dawlad dhan oo maartay iyadu marka ayadii ka shaqeysan karto oo adduunyada kala la xiriiri karto oo ma garanaysa ma nihin laakiin insha Allah taa intaan la gaarin waxa weeydiina ka shaqeyno oo maartay August dhacdo wixii loogu talagalay oo ah in transition laga baxo dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya sidee bay u aragtaa horumarka dawladda Turkiga ay la damacsato inay gaarsiiso guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho aragtiduna waa sidee aragtidu waa mid aad waxa weeyaan Turkiga runtii waxa ay sameeyeen wixii adduunyada oo dhan laga filayay in especially dalka islaamka inay sameeyaan oo iyaga maanta horyaal horseed u noqday markay meesha yimaadeen runtii shaqada ay qabteen wax mid la qiyaasi kara ma oo waxa weeye markay iyagu waqtiba ma weys gareeyaan way imanayaan ama isbitaal dhis ama meel maaragtay IDP camp wanaagsan sameeyaan ama dawooyinkeen ama laami hagaaji wixii waad arkaysaa maanta taasaa keentay dadkooda in xamar Muqdisho lagu lugayaan iyagoo la ilaalinayn laamiyada lugayaan waxba la yeelin marka waxayna la qabteen runtii waa wax aan la qiyaasi karin international maanta dawladdii Turkiga waa taafurantay Soomaaliya imanaysa ka noqonaysa marka mar kasta waxaad moodaa inay iyagu horseedeen international community inay maartay marxalad cusub la galo prime ministerkooda ugu horreeyay markii uu naga tagay adduunyada dhan ugu furantay maartay marka maanta runtii in
lama hadiyo bahayn lagu mahad celiyo waxayna la qabteen ساعات الوزير دولة كمل قال كأس الصومالية ضد بدن بقبة أما آمسن إن حل قلمك اللي جرو هرمر يوناك بدن أي سميسة وقت جيني واقف جبو قياستي أنتي لو طلق على إله يصدح بلاد أيام فيليا إني هاتم يدين هرسنت ضد كويس ويدينيا دولة كمل قال كأس الصومالية محمد به جدا بي أما بليه جدا بي أي حول حول له وسقطي أو هرمر في عمو كانه أو أنتي هو رؤوس تقبل حرام عقبات بدل ما نقول تاجنا لكن سام كل شيء استراتيجية واحد من عندك دق لحين وحين لقى فكرة أنتي أبارين وكل سواق علي وحياة بدل ما نقول استاجر أنتي لكن وحوي يوم مقدشة أمر كليه نقول فرنتي وإذا نفس كذا نقطتين ما ركتين نقطتين لقى في رسوسي دي أمريكا مقالة الله إلى الله كبروجكتي وين نقول فرمي كتير وأنا أود الحين مركي بينا ما ركتين كسر نقولنا الحمد لله مركي تعال دافعنا واحد نقطة استراتيجية مركي كل نقول تجيلها يعني لو حصل لها هنا قالنا أساس شكتين مركي بروجكت اللي سوينا اليوم وين لونج تيم نقطة هو حي أنا بريها كذا شغالين نبغى إما كذا كساعدكم ما قرنا يسا نتيجة دي سي لكن إلا يبريها جل هذا وما رت شغله كويس dhaqaale badan baa soo galay dawlado badan baa taageeray Turkiga kamid ah deeq fara badan oo dhinaca aadminimada abaalini fidiyay waxa soo dhan marka Afrika loo eego inta badan corruption iyo musuqmaasuq fara badan baa yimaada mas'uuliyiinta aan xil iska saarin dhinaca dhaqaalaha wixii dadweynaha loogu dhiibay musuqmaasuq oo kale dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya maxaad ka qabateen guddiga maleedihiin ma la dagaalantaan sidee uga shaqeysaan wallenahay wala sameeyay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa loo saaray dad waxa ka shaqeeya waxa kale oo jiray marka tan marka lagu xishay international community lagu xisaabtamayo oo board loo saaray oo annagu aan member ka nahay oo ilaalinaysa lacagta international community ay u soo dirto ama UN ta ama hay'adaha nala shaqeeya oo annagana soo gaadha marka anti corruption committee waan sameynay maaragtay marka transparent way waxa ay wadana wax la arko marka runtii tallaabooyinkiina laga rabay anagu waa qaadnay سعادة الوزير حسين عرب عيسى واحد شراء كوزير هان وزير كالدفاع عم قاشان دك الدولة كمال قارك الصومالية أياتها وضن لبعتن سنة دجال سكية كسعودي كوحدة الشباب يكو حكى لبا أي كسر جنون ودجال الله أي كده عين قرح يدبتين فربنا دتك يدولة دولوجي سني ضد عين كاسو كذا مركز أدوها يصير كارنتها وزير لماذا قاشان دك كارن إنتاج يدو لوجي هنا تاي بتحوق وين يتم مسؤولية حدنا ما حد نوت ما برس وزير كقاشان دكو من هرد الذين با من بركمه كشيفا من حد يشير هيجن كشرا الشقة وزير كقاشان دكو قبنا ومثله horta de marka lagu jiro dagaal sawir guud naga sawir guud waxa weey horta runtii de xaaladda dalka ku jira waa waqtihiin oo saad sheegtay burbur 20 sano dadka runtii damage weyn baa ku soo dhacay alxamdulillah maanta waxa weey anaka muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan shacabka inaan marka hore soo jiidino tii wana suura gashay taasana keentay jabiska cadow aan jabinay anigu runtii aan iska fikireen runtii ma hadda waxa la nimanka dagaal ku jira farada ku jira anigu waxaan bixinayna aan ma garanaysaa ama advice aan siin ama talab laakiin runtii nimanka militariga dagaalamaya ee dhimashada فوق العقد كدعيسو أما داوع هل سكون دعيو لمن كويان لمن كرنت على هبين كيسي حنين أنا قلت نفس الشيء لكن مركز تولى قربت هاجنا هي وشقة إذا مرة معته لكن ده أنا كلمة هي لمن سراكيل وحكرنا ساجرتا وتليه كمدي هي أبندلو كمدي هي إنما كحكرت كأن ترجع شغل سيقانا يو أسكت تبع مركا وشقة أدو أدق لكن مركز قلينا نوجع إن الدبعة تبدأ هي الحمد لله لكن ما أنت إله هو النجاح قبتي وأنت بدل ضرب بوحة دوانا إن شاء الله وحن رجينا إنك دمات. بريكا مالين هدي بالله قاعد يقول وزير كبوستة يسكتين. مثل هذا النسيمة فرق ضرب عقوصة بحاله. والله هو حي أنا ورث الصومالي أدي أنا شغال إنه واحد دول تبع النقطة إن ما عرفت إن ذلك أنا قبلنا أون هربر جالسين بابو مهم سن أنا يجوي مرنتي إن ما أنت الصومالي فرصة أي حسن توقت اللي جنب فايدة استو تاسو إن الدولة نقطة ترى كبحده تبدنا إن لو فرق الدنيا ده والخيرات كان هيسنو أنت لا صوص عرو أن تكلنا واحترمنا. سؤال شو قدام ساعات الوزير حسين عرب عيسى عن كويدين حويه هدي أتين دولتكم الجار كاي الصومالية مدة ديننا أيكو أكتها الذين إجمالي شغالين كهذا حسام مدة صدق بالوضع قياسي أما ودوانتي بقى شعب كصوماليات بريكم مع المحيط كحسن كرم بس تاريخ ذا محا يقوليسا ودولتكم الجار كاي الصومالية هاتن شقيسا محلو حسن كرم واوي والله runtii anu dawladda waxa ba kaman fikirno markaan shaqeynayno isbana ram xalada ku xasad doonaan waa iska soconaa waxaan qaban karnaa waa qabanaa laakiin waxaan qabaa waxa ugu muhiimsan ilaahay waxaan rajeynaa naga dhigo kuwa shabaab 100% ama al-qaacida dalka ka saara oo xoreeya Soomaali isu keena Soomaali baartay qarnimada iyo wixii lagu yaqaanay
soo celiya si ayna dadkan dalkooda iyagoo jooga carruurteena weliba iskuullo iyo mustaqbal ay dalkooda ka helaan oo dee dhisno meel aan laga baxsanin oo tahriibi badaha laisku tuurin la joogo oo marka laga baxayo in fasax un loo baxo laakiin marka anagu waxaan ka shaqeynaa waa taa inay Soomaali nabad hesho iyo barwaaqo marka intaas baan ugu filan in lagu xasuusto in nabad u keenay dad badan oo kamid ah shacabka Soomaalida ayaa oo ku daawanaya haatan ayaa doonaya inay si fiican u fahmaan abaalka weyn ee horena u sheegtay in dawladda Turkiga ay idinku leedahay ee dhinaca deeqaha aadminimo iyo waxbarashada idin fidiyay in ay jiraan dawladda ku-meelgaadhka ee Soomaaliya markaad magaceeda ku hadlaysid oo kale shacabka ku daawanaya sidee baad ugu tilmaami lahayd cadaaladda idinka laftiina aad ku shaqaysaan marka dawladdaasi idin soo gaarsiiso deeq waxbarasho oo kale amaba deeq kale oo aadminimo waxbarashada kale haddii aynu carab ku dhufano marka la doonayo in la qoro 200 oo arday oo loo dhoofinayo waddanka Turkiga sidee baad gobolladii Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee maanta is wada haysta inaad cadaalad iyo sinaan aad ugu shaqaysaan sidee idinku soo tagshaa wallahi mid aad u adag laakiin waan isku dayaa saad ku sheegtay iyakaaba actually imtixaanada qaada Turkigu oo dadka gobollada meesha joogan waa loo geeyay kuwii loo geyn karo qaar waa la keenaa saad u tahay xataa waqooyi waa tii la geeyay oo imtixaanada xaggaa lagu soo qaaday marka runtii system dal 20 sano burbur ku jiray in laga filo 100% si saxayna wax u dhacaan wax maskaxda galama ah laakiin runtii imika say wax u socdaan waa mid iyaga Turkishku naftirkooda ay annaga nagu aaminay iyakaaba wada oo imtixaanada qaada oo meel kasta geeya oo monitor gareeya laakiin waa la hubaa in kulli khaladaad dhacayaan aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Saacid Wasiir Xuseen Carab Ciise wasiirka gaashaandhigga ayuu daawadayaalkaasi ahaa oo aan ku wareysanaynay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka tan iyo kulankan dambe waa Cali Cabdi Xalaal oo dhamaantiin baydala sidaa iyo nabad geliyo